الذكرى سيذكر من يخشى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إن هو إلا ذكر للعالمين. waxaan isugu imanay waa baraarujin kama marka fadhiya inala hadlaaya iyo keena lala hadlaaya intuba waxaan u baahannahay in layna baraarujiyo. nabigeena Muxamed calayhi salaatu wassalaam ayaa u baahday in isaga la baraarujiyo oo dushiisa qur-aanka lagu akhriyo. Cabdullaahi ibn Mascuud radiyallahu canhu allah raalli ka noqdee ayaa nabigeena sala allahu calayhi wasalam isagoo la joogo nabigu ku yidhi iqra' calaya alqur'aan. ibn Mascuuda qur-aanka dusheeda ku akhri. markaasaan idhi aqra'u calayka wa calayka unzil. yaa rasuulallah qur-aanka ma dushaadaan anigu ku akhriyaa aduuba qur-aanka dhanba kugu soo degay. qaala innii uxibu an asmacahu min gayrii. waxaan jecelahay buu nabigu yihi calayhi salaatu wassalaam dadka kale qur-aanka inaan iyaga ka dhegaysta ayaan jecelahay. qur-aanka igu dul akhri buu nabigu yihi calayhi salaatu wassalaam. faqara'tu calayhi suurata annisaa xataa ji'tu ilaa hadihi alaaya fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin wa ji'naa bika calaa haa'ulaa'i shahiida. aayaddaas waxaan u malayn inay tahay aayadda 41 fi suurati annisaa. aayaddaa markaan gaadhay buu nabigu igu yidhi calayhi salaatu wassalaam hadda ayaa maaragtaanay halkaan doonaya haddii gaadhsiisay halkaan ku jooji. saxaabigaasi wuxuu yihi nabiga sala allahu calayhi wasalam wejigiisa ayaan daymooday waxaan arkay illinta oo isha nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam ka daadanaysa. aayaddaa markii uu gaadhay nabigu u ooyey calayhi salaatu wassalaam fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin. xalku siduu ahaani doonaa maalinka qiyaamaha markaan ummad walba aan soo joojinno ee banka qiyaama aan soo joojinno nebigeedii oo ku markhaati furaya diinta inuu gaadhsiiyana aan dhulkeenno adigana Muxammadow aan ku soo joojinno adoo markhaata ummadaada ku marag furi doona diinta inaad gaadhsiisay. nabiga calayhi salaatu wassalaam nebi walba ummadiisa diinta uu gaadhsiiyey marka qiyaamaha lagu weydiin doonaa. rasuulkii rasuullada ugu horreeyey wuxuu ahaa nebi nuux calayhi salaam 950 sano ummadiisa dacwadda uu gaadhsiinayey. dad 80 qof ku dhow ayaa ka rumeeyey oo ka raacay. maalinka qiyaamaha marka banka qiyaamo la weydiiyo lagu yidhaahdo miyuuna nebi ininka uusan ini iman way inkirayaana waxay odhanayaan maa ja'anaa min bashiirin walaa nadiir. cid annaga noo bishaaraysa jannada iyo raxmaddaada iyo cid cadhadaada iyo naarta nooga digtay midna nooma iman bay odhanayaan. deedna markaabuu ilaahay nebi nuux odhan doonaa ummaddaadii risaaladii iyo diintan kugu dhibay miyaanad gaadhsiin. markaasuu leey yaa rabbi may waan gaadhsiiyey. iyaguna waxay leeyihiin cidba nooma iman. markaasaa nebi nuux calayhi salaam ilaahay ku odhan doonaa markhaati ma haysataa kuu marag fura inaad risaaladii aan kuu dhiibnay ummaddaada inaad gaadhsiisay markhaati ma u haysataa baa lagu odhan doonaa. markaabuu nebi nuux calayhi salaam odhanayaa haa waxaa iiga maraga inaan diinta gaadhsiiyo qoomkaygaas. ummaddii nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam ayaa iiga maraga. markaasaa la odhan doonaa ummatu maxamed u yeedha. markaasaa ummadda nebi maxamed la soo joojin doonaa. allahu rabbulcaalamiin baa odhan doona marag ma ka tihiin oo markhaatiga ma u furaysaa nebi nuux inuu qoomkiisa diinta uu gaadhsiiyey. haa annagaa ka maraga bay odhanayaan oo annagaa ka markhaatiya inuu nebi nuux calayhi salaam uu ummaddiisa risaaladda uu gaadhsiiyey. markaasaa ilaahay jalla wacalaa ku odhan doonaa ummaddii ummadaha ugu horraysay waa ummadda nebi nuux weeyaan. innakuna ummaddii ummadaha ugu dambaysa baa iniga dhigeen seed maraga aad nebi nuux ugu furaysaan ummaddiisa inuu diintii risaaladii uu gaadhsiiyey. markaasay odhan doonaan yaa rabbi rasuul baad noo soo dirtay khaatamul ambiyaa baad annaga noo soo dirtay nebiga nebiyada ugu dambeeyey. deedna kitaab qur'aan ah ayaad noo soo raacisay. kitaabka qur-aanka maxaa ku sugan
فيه نبأ ما قبلكم والخبر ما بعدكم والفصل ليس بالهزل من حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن قال به صدق ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم قرآن هو منزل ويان إلهي حق سوك السودقي ومديه نقوه الرئيي ورب القرآن كورميا واحد عدون إلى سعادة قيامتنا القرآن كورميا إنك بحدين هدان حكم يا شريعة أبها هنا القرآن إساق إنه حكمه وهدان القرآن كل وكل بانينا من قال به صدق أبو نبي وفق إلى القرآن إلهي بسداي لأنه شيء ومن عمل به أجر وفق القرآن كل عمل فلنا أبالي أجر بإلهي كسينيا ومن حكم به عدل وفق القرآن كحكمه كل قنأ عدالة فلي ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم وفق حديث القرآن كأبويا لنا طريق المستقيم كأيكم دعيه النبي عليه الصلاة والسلام القرآن كاسا كورما النبي نوح يقصد رحمة قوم كيسا في سورة النوح إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وكي إلهي القرآن كإنه شيء النبي نوح عليه السلام قوم كيسا قدري سقال بقولي كنت سنة أولحجه دعودي رسالته قارسيني مرقى النبي محمد أمدي سحل كاسا مرخاتك أفرد والنبي نوح لأن حجة أيا كوغ ميسا قوم النوح لأن نارتا الغبر يا مرقى كوغ قالدي قاسا إلهي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وإلى آخر الآية إلهي كدور رمي إلى أمتنا وأمت وسط وإيام مالك قيامها النبي ذا قاركود مرخاتك يقبسا دون إلي مرقى أمتا أفرد النبي ذا بانك قيامة أمت والبلسود جوجين لأن النبي يجيب أكو مرخات فرد دون إلي أمت والبرسالة يدينتي وقارسية ونبينا عليه الصلاة والسلام إمام الأنبياء أيا إساقنا بانك قيامة الله كاني حالا ونبينا أمتي سأقوم مرخات فرد دون دينتي وقارسية في حجة الوداع نبينا عليه الصلاة والسلام مروا صحابة ولا حجي حجي سيقولنا الرئيسي وقولنا دم رئيسي علماء بلادين أي النبي عليه الصلاة والسلام أي النبي يقول غدا سائلون عني فماذا أنتم قائلون بريتوا لو الله يكين ويدين دوناي محاد وندون تام رسولكم بريتوا لو الله يكين ويدين دونا وحالي هرن دونا رسالة جبريل بالويدين مرقوها الرئيسة والله ردنا القرآن كي بيت العز أتكلم لسيد محمد عليه الصلاة والسلام صدح يا لباتك سندوشي سأتكو أخرية سي مرقى سي نبي محمد وأمانة نبي محمد مرقوب بيبتي مرقى ملك جبريل عليه السلام وردنا ها أمانة نبي محمد وان قارسيي نبي محمد عليه الصلاة والسلام بأسكنا لويدين دونا والله ردنا أدقنا الرسالة دي أمانة دي جبريل وكوكيني ummadaada ma gaadhsiisay markaasuu nabigu odhan doonaa haa waan gaadhsiiyey ayaa kuu markhaatiya saxaabadeeda ii markhaatiya buu nabigu odhan doonaa leanna maalinta xajat alwadaac nabigu saxaabada markhaatiga inay qiyaamaha u furi doonaan uu ka saxeexo wuxuu yidhi gadan saa'iluuna canii famaada antum qaa'iluun baritoola waa laykii weydiin doonaaye maxaad odhan doontaa markaa bay saxaabadu yidhahdeen nashhadu annaka qad ballagta alrisaala wa addayta alamaana wa nasaxta alumma وكشف الله بك الغمة وجاهدت في سبيل الله حق جهاده حتى أتاك اليقين من ربك يا رسول الله وحن مرخاتك كفر دونا إن رسالة ربك كوسو ليبي أدن سوق سيسي أمانة دين قدتي أمتنا أظن استيحيسي مبدقي يشركي يدين لعنت مدو أي كجرتينا إن إلهي سوابتا وكغفيدي جهاد دينت إلهي هلقن كيجينا هلقنكي حق دينتو أي لحين إن أدو هلقنتي أي قيامها كومر خاتي فرينا فرفع صبابته إلى السماء فارتاب النبي علك وتابوه حيولي صدح جاب النبي اللهم فاشهد إلهو كم مرق أهو إلهو يقم مرق أهو إلهو يقم مرخاتي أهو ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب النبي يقول وركينا ما أنت حاضر إلى الجوجل وحقاق إنكم نكينا مقارسية النبي عليه الصلاة والسلام مالك قيامها النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أي إسألنا الهرجو جندنا أمديسة
isagoo ku markhaati furi doona risaaladii iyo diintii lagu soo dhiibay ummadda inuu gaadhsiiyo. bacda alkhudab markuu nabigu khudbadayo wuxuu odhan jiray alaa hal ballaqt, war ma idin soo gaadhsiiyey? saxaabadu haabay odhan jireen waadna soo gaadhsiisay. marka aayadda qur-aanka markuu ibnu mascuud radia allahu canhu nabiga dushiisa uu ku akhriyey fakayfa ida ji'naa min kulli ummatin bishahiidin wa ji'naa bika calaa haa'ulaa'i shahiida, aayaddaasi nebi maxamed qalbigiisa way taabatay, leanna ilinta nabigeena ka qubatay calayhi salaatu wasalaam. laanna risaaladii nebiyada hore way ka duwan tahay. nebi walba ummaddiisa inta uu dhex joogay unbay risaaladiisuna ku koobnayd, shareecadiisuna zamankiisa unbay ku koobnayd baa la yidhi. laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam min maalinkii isaga la soo saaray ilaa saacadda qiyaamadu ay dhici doonto, isaga unba caalamka u nebiya u rasuula. nebi dambe iyo rasuul dambe adduunka imani maayo, ogaada. waaladii nafsu muxammadin biyadihi laa yasmacu bi axadu min hadihi اlummati yahuudiyun walaa nasraaniyun ثuma yamuutu walam yu'min biاladii ursiltu bihi ila kana min asxaabi الnaar. waaladii nafsu muxammadin biyadihi, muxamed calayhi الsalaatu wasalaam naftiisu ilaaha gacantiisa ay ku jirta ayaan ku dhaartay buu rasuulku yidhi. axad ummaddan ka mida aniga ima maqlo, haddii uu yahay yahuudi iyo hadduu nasraani yahay, kaasoo dhimanaya buu nebigu yihi isagoo aniga aanan i rumayn, wuxuu dhintay buu nebigu yihi isagoo ahlunaar u dhintay buu rasuulku yidhi. shaksi kastoo adduunyada jooga waayo waa waajib ayay ku tahay inuu nebi maxamed rumeeyo. hadduu dhinto isagoo nebi maxamed aanan rumaynin, sidaa waxuu ku galayaa naar buu ku galayaa yahuud. cumar alfaaruuq radia allahu canhu ayaa maalin maalmaha ka mida nin yahuudiya ayuu ka soo qaaday kelimaad, warqad ay ku qoran tahay shareecaddii nebi muuse loo soo dhibay ee towraad kelimaad ka mid a. markaasuu nebiga u keenay cumar, allaha raalli ka noqdee, alaa acraduhaa calayka yaa rasuula allah. kelimaad oo diintii towraada ayaa nin reer bani qurayda aan ka soo qaaday, nebi allow ma kuu bandhigaayo ma kugu dul akhriyaa? wejiga nebigeena isbedela calayhi salaatu wasalaam. arrinkuu nebigu diido, arrinka nebi maxamed uu inkiro wejigiisaa laga garanayey. arrinka nebi maxamed uu raalli ka noqdo ku farxana wejigiisaa farxadda laga garanayey. abi bakr sidiiq radia allahu canhu ayaa fahmow yidhi takaladka ummuka yaa cumar, hooyadaa ku weydaya cumarow, alaa taraa maa biwajhi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam, miyaanaad arkay nebi maxamed wejigiisa carada iyo isbeddelka ku yimid, maanad ka dareemayn? warqadiiba cumar markiiba uu tuuray, dhulkay kaga dhacdo uu tuuray. cumar bnu khadaab baa hadlo wuxuu yidhi radina biاllahi rabba wabilslaami diina wabimuxammadin sala allahu calayhi wasalama nabiyan warasuula. nebigu waa ku farxay calayhi salaatu wasalaam, leanna muslimiinta oo dhan baa la yskugu yeedhay. khudbad buu nebigu jeediyo, khudbaddii wuxuu ka bilaabay nebigu low asbaxa muusa fiikum uma اtabactumuuhu wataraktumunii ladalaltum baa nebigu yidhi. haddii anoo inila jooga nebi muuse maanta uu iman lahaa oo nebi muuse isaga aad raaci lahaydeen, waad baadiyowdeen oo dariiqa xaqa waad ka weecateen buu rasuulku yidhi. low kaana muusa xayan lamaa wasacahu ila itibaaci baa nebigu yidhi. hadduu nebi muuse noolaan lahaa meel kale uma weecdeen, aniga shareecadayda iyo diintayda iyo sunnadaydu soo raaci lahaa buuli. ku salliya rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. muusa kaliimullah calayhi salaam waa nebi, waa rasuul ululcasmi ka mid a. haddii nebi maxamed adduunyadan muuse oo adduunka jooga oo shareecaddii towraadna gacanta ku haysta, haddii nebi maxamed adduunka uu iman lahaa, waxaa ballan laga qaaday nebi muuse rabbigii ballan uu ka qaaday inuu shareecadda towraad halkaa intuu iska dhigo inuu nebi maxamed raaci lahaabaa nebi kasta ballan laga qaaday. muuse keligii maahine xataa aadam calayhi salaam ilaa nebi ciise oo rasuullada ugu dambeeyey, nacam, ayaa ballan ilaahay ka qaaday miithaaq. nebi kastoo adduunyada jooga ballan waxaa laga qaaday, adoo nebi oo rasuuloo shareecad haysta, haddii nebi maxamed adduunka uu yimaado shareecaddiisa uu la yimaado, inaad rumaynaysaan ood raacaysaan ood isaga ku daba faylaysaan. ii ballan qaada baa ilaahay yidhi. waan ballan qaadna yidhaahdeen, markhaatiga ka noqda baa ilaahay yidhi malaa'igtaydiyey, aniguna markhaati baan ka hayna ii ballan qaadeen nebi kasta, nebi walba inuu nebi maxamed raaci doonay. low kaana muusa xayan lamaa wasacahu ila itibaaci buu nebigu yidhi. inakum xadii min alumami wa ana xadukum min annabiyiin. inakum iniku xadukum nasiib
nasiib baad hesheen buu nebi maxamed uu leeyahay oo aniga nasiibkiina aad igu hesheen aniguna ininka nasiib baan inigu helay buu rasuulku yidhi waan ishellay buu nebigu leeyahay hasku qanacna maku qanacna quluu radina billahi rabban dhahada radina billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين خير أمة باتهين ويا معنى خير أمة الدنيا الله كان أمة خير بدن باتهين أخرجت للناس أمة وحاتهين وظيفة الرسول السيئي أمة وحاتهين أمتها جنة وظهر قليس آياتهين أمة وحاتهين تضباطا كن أي كل حجرته جنة كوكليس بلا حساب ولا عذاب أمة وحاتهين أصحاب محمد أي كل حجران مرقى نبي محمد وحاو إليه ونليه أنا قوى النصيب بدنا هو النصيب كي إكيسي إنه كنا والنصيب بدنته النبي إليه وروح إليه ما دام أنا هي إمام الأنبياء ما دام أنا هي سيد ولد آدم عليه السلام ما دام أنا هي شفيع الأنبياء شفيع الخلائق يوم القيامة ما دام أنا هي شخص أبوه الريا الباب الجنة قراعية ملك الرضوان ليلابا أرنا يا واكما الباب وحا قراعية مركز أرندونا ومحمد عليه الصلاة والسلام مركز أرندونا وحا أمر ليقصي فراها الجنة إلى العتك لكفر إنه العتك لأوديبن أنا ظهرت إلى العتك لأوديبن بأمر ليقصي لأن مركز النبي الباب الجنة أنا قعدت إذا كنا قاجين دونا لأنه الله يغفر دونا وحا الباب الجنة إيقالقلي دونا النبي يري فقراء المهاجرين مهاجرين تا إلى سوء هجروتي فقراء دونا إلى قلي دونا الدنس ثيابهم الشعث رؤوسهم الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد النبي يري فقراء المهاجرين النبي الشيخ الصفات فوقا وكوتبه بأين فيدنين بصاص باكموغا تمدحوغا مر والبا داركوغنا ودار بالييسن وداركا داريس كبدلان ما هيستان البابدا حدي قراعانا لغا فرو قبدها لو نعميي ابياشو دقالها في عني هيستانا حدي دونا لو ما دسبو نبيغو يري وجماعه ugu horeysay albaabka jannada ay gala gali doonto rasuulku nabi maxamed alayhi salatu wassalam nasiibkeena inasiib حان مركا مالك لو ايغانا ما حد عدك ugu dayan ما حد عدك لنظامك نولوش uga dayan haday cibaado noqoto isaga kaga dayo haday nolol noqoto isaga kaga dayo haday al-hukm wal qada noqoto isaga kaga dayo haday ganacsi noqoto isaga kaga dayo haday sida ehelkiya awlaada loola dhaqmay noqoto isaga kaga dayo haday noqoto jaarka sida loola dhaqmay isaga kaga dayo haday noqoto qaraabada sida loo xiriiriyo isaga kaga dayo haday noqoto ummadda sida wax loo baray isaga kaga dayo haday noqoto ummad sida loo hogaamiyo isaga kaga dayo haday noqoto sida ilaahay loogu dhawaado loo caabudo isaga kaga dayo dhinac walba wuxuu ahaa mathal buu ahaa nabi maxamed lagu dayo laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha wal yawma al-aakhir wa dhakara allaha kathiira qudwa ayuu nabi maxamed inoo yahay calayhi salaatu wasalaam fi jamiici an-nawaaxi dhinac walba inaad ku dayato ayuu nabi maxamed kaaga yahay masal lagu dayo marka nasiibkana ina siiya sooma waa inaan ilaahay ku mahadina inaga dhiga ummadiisa waliba ina soo saaray aakhir الzamaan wadidtu low annii ra'aytu ikhwaanii bi waxaan jeclaan lahaa inaan walaalahay arki lahaa markaana saxaabadu ku yidhahdeen annagu walaalaha ma nihin miya markaasuu nebigu yihi maayo ninku asxaabtaydii baa tihiin oo saaxiibaday baa tihiin oo nebi allah walaalahaa waa kuwa aniga dabaday iman doona buu nebigu yidhi iyakuna imay soo gaadhin oo imay arkin anna ma soo gaadhin oo ma arkin buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiya ayaa yidhi adiguna maad soo gaadhin oo maad arkin ayakuna kumay soo gaadhina qiyaamaha seed u garan doontaa noo sheeg markaabuu nebigu yidhi halkay waysada marin jireen oo iftiimaysay qiyaamaha banka qiyaama iigu iman doonaan leanna sidaasaan ummaddeeda ku garan doonaa buu rasuulku yidhi marka walaalihii waxaan nahay hore maxaa nahay nabi maxamed walaalihiisii baan nahay afmayga maxaa la walaalka walaal la waayo nabi maxamed walaalihiisii baan nahay maxay ka dhigan tahay walaaladeennii wey ku saliya rasuulkeena
marka nabigu calayhi salaatu wasalaam uu noo fikiraay inoo murugoonay siday risaaladdu inoo soo gaadhi lahayd buu ku ducaynay xataa fii bacd alaxaadiis waxaa caaisha radia allahu canha ayaa aragtay nebigu maalin aada u faraxsan markaa bay tiri yaa rasuul allah maanta ii ducee markaa buu nebigu uhi allahuma akfir licaaisha maa taqadama min danbiha wamaa ta'ahar wamaa asarat wamaa aclanat ilaahu caaisha radia allahu canha dembigeygii horena ka dhaaf dembiga gadaal dambe ay geli doontana ka sii dhaaf dembigay muujisana ilaahu ka dhaaf dembiga u qarsoona ilaahu ka dhaaf markaasay faraxday marka hore dhabta nebiga ku jiiftay farxad darteed ba dhulka ugu dhacday markaasuu nebigu ku yidhi faadima caaisha maxaa dhacay ma ducadaadaad ku faraxday oo maxaa dhacay tiri nebi allow ducada aan ugu farxi waayey waa duco qaali oo qiimo badane markaasuu nebigu ku yidhi caaisha ducadaas ummadayda salaad kaste markaan ka baxaan ugu duceeyaa buu rasuulku yidhi salaad kaste markaan ka baxo ayaan ummadayda ugu duceeyaa caaisha radia allahu canha iyadoo weydiisatay ayuu cimrigeeda mar ugu duceeyey bay yidhahdeen mashaayikhdu mar buu cimrigeeda ugu duceeyey weliba iyadaa weydiisatay inagu nebi maxamed aanan weydiisan ayuu nebigu salaad kasta markuu ka baxa ummaddiisa ugu ducaynayuu lahaa ilaahu ummaddayda dembigayga hore dhaaf dembigayga dambena ilaahu ka dhaaf dembigay qarsadayna ilaahu ka dhaaf dembigay muujiyeyna ilaahu ka dhaaf salaad kasta gadaasheedu nebigu ducada inuugu ducaynayo kaana daa'ima alfikra mutawaasila alaxzaan laysat lahu raaxa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam saxaabadu markay sifaynayeen wuxuu ahaa fikirkiisu daa'im buu ahaa daa'im ma kala go-ayn fikirkiisu murugta nebi maxamed way xidhiidhsanayd laysat lahu raaxa nebi maxamed raaxana uma ahaan baa layidhi fikirkiisu daa'im buu ahaa fikir joogta min maalinkii isaga la soo saaray ilaa saacadda qiyaamadu ay dhacayso basharka imanaya oo dhan baa nebiga laga rabaa risaaladda inuu gaadhsiiyo leanna maadaama cimrigiisu uu ahaa 63 sano keliya waxau nebigu ummaddiisa risaaladda ku gaadhsiinayey waa niyad iyo duco maalin maalmaha ka mida nebigu safar buu ka yimiday waxa uu yimid isagoo wejigiisiina uu bedilmay dharkiisiina ay ku dulbaaliyoobeen waxaa hadyigiisa ka mid ahay inta uusan maaragtaani aqalladiisa uunan ziyaaran masaajidku nebigu tegi jiray deedna 2 ragacuu nebigu ku tukani jiray marka labaadna wuxuu ku xijisiin jiray aqalka faatima radia allahu canha binta muxamed sala allahu calayhi wasalam guriga inantiisuu nebigu aadi jiray markaasay maalin maalmaha ka mid a faatima markay aragtay wejigii nebigoo doorsoomay iyo dharkiioo ku dulbaaliyoobay intay u dhunkatay ayay iska oyday markaasuu nebigu ku yidhi aaba maxaad la oyeysaa ii sheeg araaka qad tagayara lawnuka wakhlawlaqad hiyaabuka bay ku tidhi yaa rasuul allah waxaan arkayaa dharkiina waa kugu dulbaaliyoobeen midabkaagiina waa isbedile bay ku tidhi markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam illintii ka daadanaysay intuu ka biyey buu yidhi laa tabki yaa ibnatii inantaydiyay ha ooyin fa ina allaha bacata abaaki biamrin laa yabqa calaa dahri alardi baytu madarin walaa wabarin walaa shacrin ilaa adkhalahu allahu bihi cizan aw dulla wasayabluqu hada addiinu xaytumaa balaga alleylu waannahaar aabbaha ooyina aamus buu ku yidhi aabbaha rabbulcaalamiinka ayaa soo saaray amar baa loo soo dhiibay amarku waa maxay diinta islaamkaa loo soo dhiibay waxaana laga rabaa aqal adduunyada ka dhisan ma jiro aqal magaalo ka dhisan iyo aqal hayjad ka dhisan iyo aqal miig ka dhisan ma jiro ilaa waxaa laga rabaa guri walba inuu diintaa geliyo ayaa laga rabaa wayna geli doontaa buu nebigu yidhi aqal walba diintaasi way geli ama cizi bay ku geli buuhi ama dulli ama cizi bay ku geliyo qofka aqalkaa gala isagaa islaamnimada intuu ku qanco isagoo casiizu diinta gurigiisa kula noqoni doonaa ama sandullaa lagu gelin doonaayo rag baa intay qaadaan diinta guri walba gaala ay ku nooshahay risaaladan xoog bay ku gelin doonaan wasayabluqu hada addiinu xaytumaa balaga alleylu waannahaar habeenku inta uu u dhaco oo dhan inta maalin u soo baxdo gabalna uu u dhaco intaasoo dhan bay diintaydu gaadhi doontaaye hawalwelina hawalbahaarina hawooyina aamus buu nebigu ku yidhi waa bishaaro weyn soo maa inay diintani meel walba galayso laakiin dadkii sababta looga dhigaya allah inaga dhigo aamiin dhahada ilaahay nebi maxamed waa loo ballan qaaday
إن دينت لأقل والبا أي قلي دونت والله بلن قالوا إلهي بايري هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والله متم نوره ولو كره الكافرون ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون بلنك إلهي بقادين دينتا أقل والبا دينت أي قلي دونت إلهي بلنك النبي محمد قادي لكن رجي رسالة حنباري لها اعتبر كوكا انتي دينتا قاطان أقل إيه ودن يتولى أقل لها الله هنا قدو إن شاء الله دعنا يا وديارينو كمان مدرقاس يا الله إلهنا استعمال آمين دعنا إله حق الله استعمال حق الظاهرين تيس إله الله استعمال رسالة في دينتا إله الله استعمال قري والبوحة والنبي محمد بلغ هذا دينتا سنة قلبه وينقلبوا نبي سيبلغ هذا الدين حيثما بلغ الليل والنهار تميم الداري الله رأى لك النظرين صحابي قال له ننجري أياي الدعاء داس حديث كان نبي محمد وان أركي وحا كأركي قوم كيجي بان كأركي بلو قوم كيجي كوي دين تقاتين ويعزوا بين كوي إسلامي ماذا قاتين ويينا رجعوا جينا ينتون الله يبا وبت كوجي ودبر كوجي الله قيم تميم رسالة بركة صحابة الرسول رضي الله عنهم وحاول نبي مكبل أبي إنه الرسالة دا صحابة دي وكتر بيديه سدح يا الله باتك سنة نبي وجوج مكة مدينة ومدوا نبي كتر بيدينا يي رجع الرسالة دا حنباري لها أي نبي كتر بيدينا يعلم كل ندور لها وصل يا رسول الله مساجد كي سبوا جوج النبي صلى الله عليه وسلم أيها وحي من رجل زياد بن حارس السدائي رضي الله عنه نبي قوي مدي وإسلامي لأن المساجد كحلقات كيسبوا بركة كان يبقى إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذات كان دين تلقوا براي ذات كان لقوا إسلامي لي أساسيات الإسلام كان لبراي أساس الدين كان لبراي قال سورة فاتحة كان لبراي قال التحيات كان لبراي قال معاونتين إخلاص كان لبراي قال آلات الصلاة كان لبراي قال ما رتاني أخلاق لا لبراي قال سيد اللوتو كذا لبراي قال سيد إله الله بريان لبراي مركا ما دام مسجد النبي محمد وها مركز الدعوة أمتنا علم يا خير كان لو براي وحو كقيب قال مركا دتي دين لبراي وكمل نقضي طلبة العلم سفي عن صد أول جيسنا مركا من بعض ورئيسته كويري من أي قبيلة أنت مركا سوري من السودائي رسودي ها وما نمغل ما مغل عيدا نمبو نبي قدري أو قوم كاجي كم مغنبوي ما مغل ومحال دقال بالمكعي مركز التركي أنا دين تجارسيني ضد لا دقال لا ما ضد دقال لا ما ينا ما وضد جلع سنة ودبع سنة في عام وحلو شيء قوي قاتل أنا يقول عاقل عقاشو ذي كمذا أيام مركب النبي مركب الصحابة إلى الأفشل رسولكم مغلية مركب النبي قوي ميدي يا رسول الله أنا لك بإسلام قومي بكي فابعثني إليهم يا رسول الله تلكي أنا دينتي الرسالة دي دعوة قارسين أنا كأقف لنا عيدا كأكون مقن كسو علم مركب النبي قوي لفرس كأقا أدوك حيسؤه كذبت واحد كتر هذا النبي قال يسود دري كسو نقضه مركب يا رسول الله فرس كيقول سفر ما كسو قال عبدو ودالين مركب النبي قال نمو دري عيدا كي أمال دحاذا مرة يبقى لقى سعودي وسؤال نقدين صحابي قال زياد بن حارس السدائي مساجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فديابه ورقب إلى قومه تركب ورقب أو قري وأبن دقا يجيد الإسلام هو ناقي معانك إلينا لأن مركاسا ورقدي ورقدك كما يسوي جوابي وحي صدرين تقريبا أفرتن أما صدر من أوضتك أخيارتي عقاشية أوضيدية ثلاثة غيرهم أي كدو أي شيء أي مقالة دي مدينة صدرين مركز السوداء زياد بن مادين زياد بن حارس بأوضياش النبي أوكاني ومحي موجنا يعني وحي عبينا يعني إليه يا رسول الله ولكن زياد ورقدي والنص صدرين بأن السوق قاعدين
وحكون بشارين أنك نوان إسلامي ضدك نقد بيونا نوان ولا إسلامي بركان النبي صلى الله عليه وسلم هو فرحي لماذا؟ هل قفوا إسلام النبي وكفر حجريبا لي هل قف هذا ملايين قبيل دن وميل دن قد ما النبي قال الله بشاريي عن بكرة أبيه من وضع إسلامين مركب النبي يقول يا زياد إنك امرؤ لمطاع في قومك والله إنه حتى تركيسو أي كذب بيان والله يقول يا هي ودتكيسو أي مغلان باتهي مركب سوري مي نبي الله أنك ما هو حسوا هديه بل الله هداهم من الإسلام بل إلهي بسوا هديه بكي يا سوا هديه والله بسوا هديه مركب الصحابة رسولك يقول إسلاما دارين وحاكو دلنا الرسالة تبليغ الرسالة إن الرسالة دان قادان أمد أي قارسيان ومسؤولية دودي نبي محمد عليه الصلاة والسلام بعثة نبي وكقري مساجد نبي محمد بحديثة أي تركي سودة كسوة الإسلام سفر يسوق النبي صلى الله عليه وسلم سفر هذا نبي البادية أعرابي يسكسر بحال مرقاب النبي يقول إلى أين؟ وعود إلى أهلي ورحقات السعودة وعود ذلك يجيبها في السعودة هل لك إلى خير النبي يقول كيري ما قلتها خير هنقول ديبه تركا خير كان مقارسين مرقاب لو خير كان يقول ديبه سمحوا لي مرقاب النبي يقول كيري تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلهي عز وجل إنه الله كليقي يا هيبة قري أنا كان الرسول النبي نبأ أيادي الروميني لبدا صدقاتي وتركا قارسين بكي شهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إنتاس أياد أبو الرومين تركا إنتا بيدي وتقارسين مرقام نقر البادية وحيولي مرخاتم ما هي ستا إنه إلهي أمدي هي أدقوا لي إرقدي سيئة هي مرق ما هي ستا مرقام النبي قولي ها يا أبو مرخاتيا وحول ماشي جوغان مركا ووادي قركني مركا جوغان نبي جاي نيكن قركني جوغان قركا كلا waxa ku yaala geed dir weyn ba ku taala geed ku weyn markaa uu nabigu geedkaas ay marxaatiyo uu geedkaas ay marxaatiyo markaa uu nabigu sallallahu alayhi wasallam geedkii Allah wuxuu ku yiri ilaahay inankiisa halka ku kaalay macal xididadiisi uu geedku dhixdii soo jeexay saasuu dhulka u soo jeexay qarkii nabigu joogay uu yimiday saddex jeer buu luqada carabiga ku ashahatay dana halkiisii buu ku noqday ninkii carabiga sidaas uu geedka u daawanaya geedka warama xagga ka soo talaaba xagga noo yimaado sidee magaaladu yeelay غريب soma shay qariib markaa buu nabigu ninkii ku yiri maada hay maxal oran buu kay markaas uu ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah إلا يجد بهرتي سكوا شهاتي ومعجزات إلهي نبي محمد وسيئة كمتها عليه الصلاة والسلام إن جيت كهالله إن يجب النفق أوقاتين تسيد يوم واللغة عربية كهالله مرقو نبي مدينة السوقاري لأن عربي وأريقي سي وتام قانا مدينة السوقاري مرقو نبي كويل وحال أركته الشيخ أصحاب طيلة وقواص يا رسول الله وحان أركوان شاقي أنا أرجع إلى الجوجا دروا أيا نافع قاتي أما يجيب نافع دفوع قاتي لأن قريبا أولان هيبا كل ذي كتوري وإيسي دايي كل إيتوري وهالك يستخدم اللغة العربية وكوها الله وحيري مرزق إلهي أفك إيسو قليي أيا دين آدم ويقرب نيسا نكي مدح وقبصده وحيري وعجبا هل الذئب يتكلم كلام الإنس ما يجيب اللغة بني آدم كوها الله يا وأعجب من ذلك بويري يجيبها الله يعني وحي عجب بدل محمد عليه الصلاة والسلام محمد أيام مدينة المنورة يثرب السوق علي خبر كي سمد إلهي أسودي لي أي بن آدم كأشيغيا دتكن وإلي بيهيني أنا كاسا إيجيا بدل ورد النبي محمد تلبكوي يي الذئب يتكلم كلام الإنس مركب النبي والصحابة دي بكوي نجست واكاس جيت كهاللي ويجا هاللي ودقح هاللي دقح باجري دقح قبل البعث أبو النبي يقولي أيان أركجر إسقوا السلام يا
haddaad doodana dhagaxa afartan inagu fiiqibu rasuulku xajar yusallim cala annabi calayhi salaatu wasalaam wayaquul asalaatu wasalaamu calayka ya rasuula allah dhagaxaa la hadlay oo geed baa nebiga la hadlay oo yey baa nebi maxamed u markhaati kacay risaaladiisii ninkii acraabigee reer baadiye wuxuu yidhi yaa rasuula allah ilaahayna waan rumeeyey adigana waan ku rumeeyey ehelkaygaan u socdayna risaaladdaa waan gaadhsiin hadday isoo raacaanna waan soo kaxayn magaalada madiinaan kuugu imanaynaa hadday isoo raaci waayaanna anu gaalo ku dhex noolaani maaye magaalada madiina mu soo jirona waa kuwii unbugay aladiina yubaliguuna risaalaati illah wayakhshawnahu walaa yakhshawna axada ila allah wakafaa billaahi xasiiba ilaahay risaaladiisii saxaabadu way qaadeen way xambaareen risaaladda iyo mas-uuliyadda deedna maxay heleen marka sida nebi maxamed ilaahay ugu gargaarayey si lamida iyagana lagu gargaaray sidii nebi maxamed ducadiisa loo aqbalayey ayaa ilaahay ducadooda u aqbalay sida nebi maxamed ilaahay uu mar walba ula jiray ayaa iyagana garabkooda ilaahay mar walba ula jiray risaaladu waa risaaladii wadiifadda waa wadiifadii ammaanadu waa isla ammaanadii markaasee saxaabada rasuulku waxay dareensan yihiin haddii nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu adduunyada ka baxay gargaarka ilaahay meesha kama tegina waa joogaa bay idhahdeen man kaana yacbudu muxammadan fa ina muxammadan qad maata waa kii abubakar sidiiq markii nebigu intiqaalay qabrigii nebiga oo mayda intuu dul joogsaday ayuu halkaa nebiga ka dhunkaduu yidhi maa atyabaka xayan wa mayita nolol iyo geeriba maxaa kaa udug badan oo kaa udgoon badan markaasuu yidhi waryaaday dhegaysta ninkii nebi maxamed caabudayo waa kaa nebi maxamed u dhintay innaka mayitun wa inahum mayituun laakiin ninkii ilaahay caabudayow ilaahay waa xayun baaqi buu yidhi ammaanadii iyo risaaladii iyo diintiina waa laynooga tago innakaa ilaahayna siiyey haddaan risaaladda iyo diintaa sidii nebigu ugu halgamayey aan ugu halgamoon uga shaqayno sida nebi maxamed ilaahay ugu gargaarayey ayaa ilaahay innakana nagu gargaarayaa buu kuuhi abubakar sidiiq marka ilaahay baa maceena yaa maceena yaa inala jira wa huwa macakum aynama kuntum wallahu bima tacmaluuna basiir macak ilaahay gargaarkiisibaa macaga maciyadiisibaa macaga ducadaadaa ilaahay aqbalaya cilmigi ilaahay baa kula jira waa samiicun basiir weeyaan ilaahay waa ku arkaya waa ku maqlaya saxaabada rasuulka radia allahu canhum siday isku xil qaadeen ay diinta ilaahay xilkeega u xambaareen haddaan innaguna xilka u xambaarna bay culimmadu leeyihiin sidii ayagna loogu gargaaray baa ilaahay innagana loogu gargaaray marka nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay naga dhigay ummaddiisa marka ummaddan risaaladaasee nebi maxamed ummaddan ila wadaagaysaa risaala qisas badan baa laynoogu sheegay taariikhu siyar taariikhu saxaabe taariikhu taabiciin qowmu muusa calayhi salaam baddaa loo kala jeexay laakiin asxaabu muxamed badda iyakuna dul mareen nebi ibraahim dad baa lagu tuuray dabkii waxba uu ka qaadi waayey abaa muslim alkhawlaani dad baa lagu tuuray dabkii waxba waa ka qaadi waayey cusayr dameerkiisii boqolka sano mootonaaba loo soo noolaysiiyey nabaatata binu yaziid oo taabiciyana dameerkiisii ka baktiyey markuu 2 ragca u tukaday ilaahay isagana dameerkiisa u soo kiciyey sida ducada nebiyada loo aqbalayay baa ducadooda asxaabta nebiga loo aqbalayay sidii ambiyada ilaahay ugu gargaarayay baa ilaahay kana ugu gargaaray ummaddan ummad agoona maaha ciyaalka markii aabahoodu ka dhinto way agoomoobaan oo agoonnimadu way ka muuqataa laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mucjizaadkii la siiyey mucjizada ugu weyn waa qur'aankii nebi maxamed muu naga qaatay base uu nooga tegey waa inooga tegey akbar mucjiza nebi maxamed la siiyey waa qur'aanka waa inoo yaallaa
wadiifadii nebi maxamed ilaahay u soo saarayna nebi maxamed ma raacina waa inooga hadhay haddii nebi maxamed ilaahay uu yidhi wadaaciyan ila allahi biidnihi wa siraajan muniira nebi maxamed ummaddiisana waxaa la yidhi qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii isaga keliya daaci maaha ummaddiisa dacwadda la wada isaga keliya caabid maaha wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin keligii maaha ummaddana waxaa la rabaa ilaahay inay caabudaa la rabaa yaa ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu wacbuduu rabbakum wafcaluu alkhayra lacallakum tuflixuun yaa ayuha aladiina aamanuu ilaahay baa aamina ilaahay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay nebiga rumeeyey ilaahay u rukuuca oo ilaahay u sujuuda oo ilaahay caabuda oo khayrka sameeya si aad adduunkan iyo aakhira aad u libaataan baa lagu leeyahay cibaadadii nebi maxamedna waa la amray ummaddana cibaadada waa la amray nebi maxamed dacwad gudbinaysa oo fidinaysa usalli ya rasuul marka ma nihin ummad dayacane innagaa isdayacne maanta waxaan ku liibaani lahayn waan haysannaa wixii ilaahay nagu gargaari lahaa waan haysannaa wixii ilaahay maceenna uu ku noqon lahaa waan haysannaa wixii ilaahay nagu cisayn lahaa waan haysannaa laakiin innakaa qaadan weyna nicmadda maanta innakaa dayacna mas-uuliyadeennii baan dayacnay markaasaan ku mashquulnay wax laynoo diran wax maa laa yacni aa lagu mashquulay maanta maa laa yacni adduunyo haddaad shaqaysatidna waad heli haddaanad shaqaysanna waad heli haddaad ka lahdana waad cuni haddaad jiibsatana waad cuni dadka inta kala haysa iyo inta cunaysa imaa badan intee badan dadka ka lahaya adduunyada u ka laha waa 20% ka soo qaad 80 kale ma shaqeeyaan waa iska cunaan dumarku ma shaqeeyaan haddana way cunaan ubadku ma shaqeeyaan haddana way cunaan dadka waayeeladu ma shaqeeyaan haddana way cunaan dadka waalwaalan ma shaqeeyaan haddana way cunaan dadka jeelasha ku xidhan ma shaqeeyaan haddana way cunaan dhallinyaradu ma shaqeeyaan haddana way cunaan dadka indhoolayaashu ma shaqeeyaan haddana way cunaan wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun risqii laynoo yaboohay ayaan cimrigeenni caqligeenni iyo dadaalkeenni maanta ku wada bixinay markaasaa dadku maanta ay leeyihiin adduunyadu dadaal bay ku timaadaa diintana ilaahay baa ku soo haday maxay yidhahdaan adduunyada dadaal ay u baahan tahay diintana culumma noo soo duceeya soo saama yidhahdaan sharif waa bilcaks waa in la yidhaahdo la fahmo arsaaqadda waa inta ilaahay noo qadaro laakiin hidaayadda iyo diinta waa hadba inta diinta loo dadaalo weeyaan misaal baan niin sheegi oday maalqabeena hadduu dhinto dhaxalkiisa xoolihiisa ayaa qaadanaya ciyaalkaasi xoolaha matacab iyaka ka galay bay ku heleen mise qadar ilaahay u qadaray waa inaad fahamtaa marka arsaaqadda waa inta ilaahay kuu qadaro weeyaan laakiin diinta dhegayso diinta u fiirso oday caalima oo mufasira oo muxadisa oo rabbaani oo ilaahay ku xidhan oo ducadiisa la aqbalo oo karaamana ilaahay siiyey ayaa ku dhalay odaygii aabbahaa uu dhintay cilmigii iyo karaamadii iyo taqwadii iyo fahmadii uu lahaa wiilkiisu ma dhaxlaya ma dhaxla baydhabo ma ka dhacda aabbihii baa weli ahaan jiray isaguna weli buu noqday ma dhici kartaa ma dhici karto ya dadaal soo maha waxay u baahan tahay aabbihii mufasir buu ahaa mufasir buu noqonayaa ma dhaxlo cilmiga lama dhaxlo cilmiga waa loo tabcaa iimaanka waa la bartaa diinta waa loo tabcaa sidaa darteed bay culimmadu leeyihiin arsaaqadda iyo adduunyada waa inta ilaahay noo qadaro
laakiin diinta waa hadba inta loo dadaalo weeyaan. marka diinta dadaal bay u baahan tahay inaan wax gashanno. waxaad gashato unbaa diinta kala soo bixi. saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin waxay haysteen oo dhan bay diinta gashadeen ilaa qiyaamaha allah raalli ka noqdo baa la leeyahay. dhaqaale hadday tahay bilaa qiyaam